ilhaamay Somaliland amaan tidiyo nimcada Somaliland afkaygu ma koobaye Allow u siyaadi deeqda kurtigeeda dhalin iyo arankeeda amnigiyo kala dambayn ummadda Somaliland allaylehe waanu qiray oday iyo kurtigeeda dhalin iyo arankeeda amnigiyo kala dambayn ummadda Somaliland allaylehe waanu qiray بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا ونكسن داودياشة قيمها هي قدرنت لا صعدة شاشة التلفزيون كما حبنا برشة تي في كنا سعودي هذا ورئيس قارة وأنا ولي لنا تليها باسبور رد الصوماليلان حسن خير واس داودي البرنامج كان أيام وحنا وطلق الله يسي أي تدوينها الصوماليلان ميركستو أي دافع الدنيا اللي كتشوغان سيدا أي وحوق عيان أما أي وحوق برنا عيان siyaabaha loo qaadanayo baasaboorada Somaliland kuwa ugu dambeeyay waqtigan socday loogu talagalay inay noqdaan baasaboorada Somaliland taliyaha ciidanka baasaboorada Somaliland Xasan Khayre ayaan ku soo dhaweyn doonaa balse uu ugu faahfaahiyo siyaabaha loo qaadanayo iyo shuruudaha qofka waxa looga baahan yahay qofka marka uu doonayo inuu qaato baasaboorka Somaliland taliyaha ku soo dhaweey telefishinka bulsho Bismillahir Rahmanir Rahim أولاً مركو هراء والسلامية تلفزيونك بولشة تي في سيدا دورارك بكو هايسين waxaa jirtay waxa la bixin jiray passport noocii hore adduunyada laga dabargooyay muxuu ahaa passportka gacanta lagu buuxin jiray passportka gacanta lagu buuxin jiray markaan taariikhdiisa inii soo koobo passportkaasi Allah u naxariistay madaxweynihii Somaliland Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal waqtigiisii ayaa la soo wada sameeyay lacagta iyo passportkaba passportkaasi in muddo ah ayuu shaqaynayay uu dhaqan galay madaxweynihii ka dambeeyay daahir yaalana muxuu ahaa waxa laga bixin jiray xafiiska madaxtooyada si loo adkeeyo waxay ahayd tolay passportkaasi si aan u maartay dad kale oo aan asirkooda Somaliland ahayn gacanta aan uga gelin passportkaasi قرارك لو بوحين شري واحد شري سي ستاندر كم حي توريان كاو لصوص صاري سنة كونية لبض كونية شنية طبعاً إلا توجيه بس بردي محي هاي توري لو بوحين شري قلنك كواس لو بدلي إلكترونيك نسيبونك سياد كور قبطان waxa halkan aan furay baasaboorada cusub oo ay soo maalgelisay wasaaradda maaliyadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamuud Maxamed Siiraanyo ayaa halkan yimiday oo furay baasaboorkaas iyo baasaboorka electronic baasaboorkaas oo la jaan qaadaya baasaboorada standardkoodu caalamiga yahay ee mashiinadu akhriyayaan baasaboorkaasi iyo baasaboorka markaan aan faahfaahiyo باسبور waxa uu qaysan saddex qaybood saddexda qaybood waxa weeyaan baasaboor caadi ah oo ordinary baasaboor xagga luqadda Ingiriisiga baasaboorka waxa loogu talagalay sukayaha Somaliland caruur iyo ciyaal iyo roolo intaba in la siiyo baasaboorka labaad waxa la yiraahdaa service passport waxa loogu talagalay kaana in la siiyo dadka shaqaalaha dawladda
markay ku safrayaan caalamka intiisa kale ciyaartooyda fanaaniinta waxyaabaha saas oo kale baasaboorka saddexaad waa baasaboor siyaasi ah waa diplomat passport waa baasaboor loogu talagalay inay ku safraan madaxdeena sarsare ee siyaasiyiinta golaha wasiirada baarlamaanka guurtida wixii heer macnaha skeelkoodu sareeyo markaas baasaboorada saddex qaybood aanu kala qaybinay waxa baasaboorku culayskiisu saaran yahay baasaboorkan caadiga la yiraahdo ordinary-ga kaasoo qaadanaya bulshada Soomaaliland intooda badani marka labada baasaboor ka tagno baasaboorkan waxa loogu talagalay in lagu bixiyo arji uu soo qorto qofka muwaadinka oo ku soo dejisanayo faragabooladii ama tigidhkii warqadda xeeraalinta markaan idhaahdo waxa weeyaan inaanu qofkaasi wax dambiya wax maxkamadi aanay kaga socon maxay tahay maxkamadda gudaheeda ama maxkamad xayirin ay macnaha ay qofkaasi ay uga tahay macnaha ay uga tahay xijaab warqadda kale farax ama dambi baarista warqadda dambi baaristuna waxa weeyaan warqad inaanu dambi gelin qofkaasi cadaynaysa warqadda saddexaad waxa weeyaan qofka caaqilkiisa oo approved xaqiijinaya inuu yahay qof Soomaaliland ah odaygiisii yahay saan baasaboorkii macnaha gacanta le noogu galay oo shaashoon tani wax badan baad kulay nooga dhawaajisay oo siyaabaha loo qaadanayo shuruudaha qofka looga baahan yahay baasaboorkan e-baasaboor ee Soomaaliland xageeba wadamada caalamka oo dhan ma lagu tagi karaa ma loogu safri karaayo international passport Soomaaliland soo noqonaya sida horeba aad ogeedeen baasaboorka hore aan ka soo sheekeeyay backgroundkiisa ama taariikhdiisa hore baasaboorka hore waxa lagu tagi jiray caalamka intiisa kale wadamada inagol kuwa ina danaynaya kuwaas oo dhan Mareykan baa lagu tagay Ingiriiska lagu tagay Yurub oo dhan baa lagu tagay dawladaha Afrikada galbeed bariga Afrika wadamada dariska nahay intaaba macnaha waa lagu wada tagay kan kale laakiin standardkiisu waa e-passport wuxuu leeyahay waa baasaboor korsiisaba waxa weeyaan waa in balanka wuxuu u matala caalamka wadanka waa baasaboor si fiican ama hada ka gaadhay wasaaradda maaliyadda wasiirka maaliyadda Maxamed Samaale loo soo xarday si aad loo soo qurxiyay security feature wixii baasaboor lahaa caalamka ee kaga duwanaan lahayn caalamka intiisa kalena aan kula tartami lahayn loo soo sameeyay si aan loogu sameyn wax feega ama forgery aad baa loo soo macnaha loo adkeeyay taas keentay maxay tahay baasaboorka in shuruudaha aan la adkeeyo wasiirka maaliyaddu wuxuu soo saaray wareegto oo 7 bisha wixii ka dambeeya baasaboorkaasi dhaqan galayo oo sida maxay tahay loo bixin doono taliyaha waxa tahay taliyaha ciidanka baasaboorada Soomaaliland ee laanta socdaalka ama taliyaha ciidanka laanta ee baasaboorada Soomaaliland dad badan baa kulli in badan bay sugaynay baasaboor ay Soomaaliland yeelato oo rasmi ah oo caalamka iyo meel walba lagu kala goosho dadweynaha daawan doona taliye maxaad maanta halkan fariin u dir lahayd si qof waliba oo muwaadin reer Soomaaliland uu u helo baasaboorkii uu waqtiga dheer sugay maxaad halkan maanta fariin taliyenimo dir lahayd waxaan fariin u direynaa dadka dadweynaha Soomaaliyeed ee Bulsho TV ka daawanaya baasaboorka horta sidiisaba waa documents waa warqadii socdaalka ee qofku ku tagi lahaa wadanka intiisa kale sida aan u soo carabaabay aan u soo sheegay in baasaboorka aan warqadaha la soo qaadanayo saana la yeelayo waxaan ka ilaaway markii hore dadkii baasaboorada hore haystay maxay haytoolay baasaboorkoodu aan u shaqaynay kii hore qaatay marka uu ka dhaco uu noqdo muxuu ahaa dhaqanbax ayaa loo bedelayaa laakiin qofka cusub ee maxay tahay hadda qaadanayana wuxuu soo maraya processka kale qudhiisu marka uu soo bedelanayo baasaboorka waa inuu soo maraa warqadda faraha ee dambi baarista iyo warqadda maxay tahay xeerlaalinta sharcigan cusub ee maxay tahay imika wadanka wax loo sameeyay ID card aan lagu codayn doono ID card-ka qarankana noqon doona aqoonsiga qaranka macnaha af Soomaaliga markaan idhaahdo kaasna inuu qofku soo qaato muhiim haddana diiwaangelinta socoto qofku ka qayb galo si aanu hadhow toolo aanu wala kulmin maxay ahayd toolayan dhibaato oo cadeyntiisa awal marka qofka uu ka lumo waxaan u dirijinay waaxda jinsiyadda
agaasimaha waxa jinsiyada muxuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha dib badan buu qofku mari jiro waxa la soo cadeyn jiray qofkan inuu baasaboorkii inuu Soomaaliland yahay macna sidoo yahay waxa soo dhan marka inta warqada la keeno laakiin waxa qurux badan inuu qofku warqadiisana xafido waxyaabaha baasaboorka TV-ga aan ka sheegaynana oo qofka macnaha soo xafido oo ay ugu dhamaato macnaha intaas waxaa ujeedaa shuruudihii oo kale in dadka bartaan ay dadkii si ay dadkii loo barto shuruudihii la soo buuxinay qofku marka hore codsigu soo qoranaya marka dambe xeer ilaalintii buu soo maraya ama CID damti warqadihii dambi lahaanta ayuu soo qaadanaya intaas oo dhan marka qofkii soo dhameeyo muddo intee lag bay ku qaadanaysaa qofku inuu ku qaato baasaboorkii uu soo baxo sida caalamka horta bini'aadanku dadkeenu waxaan ku yar jiray degdeg yar qofku inuu maanta intuu yimaado inuu berito la helo baasaboorku maaha wax maartay markiiba inta la sameeyo markiiba maxay ahayd haddaanay jirin duruufo adag oo lagu qanci karo qof shil ku dhacay oo naftiisa la badbaadinayo macnaha waxyaabo caynkaas mooyaane maxay tooray qofku marka uu uu soogay sida caadiga ah waxay qaadan doontaa 7 cisho ilaa 10 cisho inta maxay tooray laga baaran degayo oo loo dhameystirayo maxay tooray hawshiisa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay taliyaha ciidanka baasaboorada Soomaaliland Xasan baldaawada imikana waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo kamida qalabka iyo siyaabaha loo qaadanayo baasaboorka Soomaaliland e-baasaboor oo waqtigan si rasmi ah uga bilaabmay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo meel kasta qof walba uu heli doono waqtiga uu doonayo inuu qaato baasaboorka Soomaaliland ee e-baasaboor waynu eegno siyaabaha loo qaadanayo sawirro ka turjumaya iyo qaabka iyo si markuu doonayo qofku inuu qaato baasaboorka waxyaalaha looga baahan yahay waxaan idinku soo dhaweeyay muuqaalo ka turjumaya qaadashada baasaboorka Soomaaliland qaadashada baasaboorka Soomaaliland ayay ummadda Soomaaliland ay waqti badan ay aad uga dhursugayeen iyadoo waqtigana baasaboorka Soomaaliland uu diyaar ku yahay xarunta laanta socdaalka Soomaaliland iyadoo sida uu taliyaha ciidanka baasaboorada Soomaaliland Xasan Khayre telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV uu sheegay in waqtigan uu e-baasaboor Soomaaliland uu diyaar u yahay qof kasta oo muwaadin oo doonaya inuu qaato baasaboorka Soomaaliland